mar walba haddaad rabto inaad nolosha ka gaadho guul waxaad badisaa dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay xus mar walba noqon mid rabbigiisa raalli geliya nolosha raalli baad ku noqon mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa waqti aad ku bixiso ilaahay waqtigaaga inta hadhay ayuu kuu barakayn raallina waad ku noqonaysaa iimaanka ayuu kuu siyaadinayaa noloshana waa kuu macaaninayaa wehel buu kuu noqonayaa cadowgana waa kaa qabanayaa noqo qof mar walba ilaahay ku xidhan waxa ugu horeeya ee ahmiyadda aad siiso ha noqdo dikriga ilaahay haddaad noqoto qof mar walba ilaahay ku xidhan waxaad noqonaysaa qof mar walba ilaahay u ilaashado oo gaar u leh ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ku ilaaliyo qof aad u baahan tahay ma laha hadduu rabbi subxaanahu wa tacaala qof dhow kaa dhigtana cid ku fogeyn karta ma laha mid kastoo ilaahay agtiisa laga dheereeyeyna waa lagaa fogeynayaa cid walba ilaahay soo dhowaystana way ku jeclaanayaan haddaad rabto inay nolosha kuu macaanaato subax hore markuu waagu kuu baryo sunnabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa ugu horeeya uu dhihi jiray ahayd alxamdulillahi alladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur waxaad ku xijisaa inaad ilaahay istighfaar bano aad ula timaado isku day maalintii 2,000 jeer 3,000 jeer 1,500 inaad istighfaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala aad maaragtay adyada samaysid galabtiina sidoo kale maxaa yeelay nolosha iyada ayay ku jirtaa haddaad maqasho nolosha dhadhankeeda iyo macaankeeda waa istighfaarta cunto aan lahayn dhandhanaan iyo xawaash iyo waxaan lagu dardaran aan lahayn ma dhandhanto cunto aan dikri iyo istighfaar aan lahayn nolol aan dikri iyo istighfaar aan lahayn ma kuma dhandhamayso nolol aan lahayn istighfaar tasbiix iyo alla ku xidhnaasho dhadhan male ha isku daalinin السلام عليكم